بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xubnaha guddiga qabanqaabada doorashooyinka guddoonka golaha shacabka bahda saxaafadda iyo bulshada Soomaaliyeed dhammaantiin waxaan leeyahay Ramadan Kariim intaas kadib sida uu hadaba ka hadlay hubintii guddiga iga horeysay muddadii hadda la soo dhaafay muddo isbuuc iyo wax la jiraan waxaan ka shaqeynaynay qabashada doorashada guddoonka golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shaqadaas oo guddigan loo xirsaaray oo loo doortay loo igmaday inay habsamay socodkeeda iyo si nabdoon iyo procedures-kii u baahneed inay ka shaqeeyaan guddigii loo mandate gareeyay baarlamaanka kalfadhigiisa labaadna lagu ansixiyay guddiga shaqadaas si qurxoon buu soo qabtay muddadii ugu dambeysayna way soo socotay xoogaha markii la gaaray qabashada doorashada ay soo dhawaatay oo 27 oo bari ku aadan waxaa soo baxday in ay arqaladooyin ay soo baxayaan oo dhibaateynaya qabashadii doorashada guddoonka sidaas daraadeed guddiga galabta wuxuu isugu tagay shir buu wada qaatay isagoo dhammaantiisa loo dhan yahay waxayna ka wada hadleen caqabadaha soo kordhay iyo wixii laga sameyn karo iyadoo guddoomiyaha guddiga uu nala fadhiyo iyo dhammaan xubnaha guddiga waxaan ka wada hadalnay oo si qoto dheerna u falanqeynay sidii si nabdoon ay uga dhici lahayd waddankan doorasho bulshada Soomaaliyeed iyo waddanka samata bixin karta waxaan isla qaadanay falanqeyn dheer kadib galabta in halis ay gelin karto doorashadii loogu talagalay inay qabsoonto maalinta berri ah hoolka teendhada Afisyooni oo lagu qabto doorashadaas markii ay soo baxday xalay wixii magaaladan ka dhacay aad ogeedeen xilli habeen ah mugdi ah meel ka baxsan xaruntii baarlamaanku ka shaqeynayay in lagu dhaariyay xildhibaano ka kala socda laba group oo gobolka Gedo metelay taas macnaheedu waxay tahay waxay u muuqatay mid halis gelinaysa doorashadii muddo fog la sugayay muddada 2 sano ay soo jiitantay ayna markii ugu dambeysay markii bulshada Soomaaliyeed iyo dadkii daneynay siyaasadda iyo dawladnimada Soomaaliya ba isdhaxeen doorashadii waa la gaaray haddana waxaan aaminsanahay in isla arqaladii 2 sano soo socotay in haddana la keenay oo teendhada loo soo raray guddigu waxay isla qaateen arrin siyaasadaysan muddo 2 sano soo jiitamaysay la xallin waayay in hadda doorashadii oo berri loo madlan yahay in la qabto guddoonkii iyo procedure-kii iyo wax kasto agabkii lagu qaban lahaa u diyaarsan yahay in la arqaladay waxay la noqotay mid halis gelin karta midnimada iyo dawladnimada Soomaaliya sidaas daraadeed waxay isku afgarteen iyagoo guddigu dhan yahay in labada groupba aan laga soo qayb gelin maalinta berri doorashada dhacaysa sababtoo ah waxaan u aragnay halis gelin karta baarlamaanka inuu kala jabo in ay dhibaato ka dhacdo hoolka in waddanka hamiga laga lahaa bulshada Soomaaliyeed muddada 2 sano ay sugaysay inay haddana ay mar labaad ay dhacday in doorashadii meesha ay ku burburto sidaas daraadeed waxaan u qaadanay u aragnay ka guddi ahaan guddigii shaqadiisu ay ahayd loo xilsaaray loo wakiishay baarlamaanka Soomaaliyeed oo u wakiishay inay qabanqaabada iyo qabashada guddoonka doorashadiisa loo igmaday aan nahay waxaan u aragnay in ay ka habboon tahay in labada groupba ay banaanka joogaan bedelkii waddanka dib u noqon lahaa oo burburi lahaa baarlamaanku kala jabi lahaa qalalaasuu meeshaas ka dhici lahaa in loo daayo labada groupba guddoonka la dooran doono maalinta berrita ah inuu go'aan ka gaaro maadaama uu yahay guddoonka haddii markii la doorto hay'adda rasmiga ah ee shaqada ku leh inay qabato halna ay ka gaarto arrintaas sidaas daraadeed waxaan isla garanay annagoo wada fadhina macal guddoonkii guddiga ku jira in arrintaas si looga baaqsado aanan labada groupba maalinta berri ah midna aanan ka soo qayb gelin teendhadaas oo doorashada ka soo qayb gelin arrintaasna loo deeyo hay'adda shaqada ku leh oo ah baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed iyo guddoonkiisa inay go'aan ka gaaraan isla markaan isku afgaranay waxaan ku wargelinay oo telefoonka ku wacnay oo qadkana furanay guddoonka ku meel gaarka baarlamaanka Soomaaliyeed oo aan u wacnay una sheegnay go'aanka aan qaadanay iyo aragtida aan go'aankaas ku qaadanay oo ah halis gelinta doorashada berri inay halis ku tahay haddii group kamid ah ama labada groupba ay ka soo qayb galaan inay doorashadaas aanay dhici karin guddoonkana wuu nala qaatay wuu nagu ogolaaday
sidaas daraaddeed waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka danaynaya dadka musharaxiinta xildhibaanada si ay si nabdoon ay u qabtaan meeshaas qof allaala qofkii ku guuleystana isaga go'aan ka gaari doona marka waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed iyo musharaxiinta iyo xildhibaanada golaha shacabka aan caawa ku wargelino u sheegno in go'aankaas aan gaarnay aan soo gudbinay waxaan ka digaynaa ka guddi ahaan hay-adaha fargelinta ku haya qabsoomida doorashadan baarlamaanka Soomaaliyeed waa hay-ad madax banaan oo sharci dejin ah oonan cidna u hoostagaynin shuruucdeeda iyo qabashadeeda doorashooyinka sidaas daraaddeed waxaan ka digaynaa xafiisyada sarsare ee fargelinaya arrimaha doorashooyinka loo madlan yahay maalinta bari inay qabsoomaan waxaan leenahay kawaantooba waxaan u mahad celinaynaa bulshada Soomaaliyeed oo muddada fog soo dulqaadatay waqti badan gelisay iyo qof kasta oo ka soo shaqeey maanta in heerkan la soo gaaro waxaan u mahad celinaynaa international community oo waqti badan soo gelisay iyaguna waxaan leenahay waa mahadsantihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed oo u wakiilsanaa amniga doorashada Soomaaliya iyagana waxaan leenahay shaqada ay soo qabteen aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan aaminsanahay shaqada ay soo qabteen inay tahay mid lagu amaano haddana ay diyaar u yihiin kuna filan yihiin amniga doorashooyinka inay sii qabtaan qof allaala bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay waxaan ka digaynaa waa halis wadankan inuu gala waxaan ka digaynaa oo mataqaana maanta caaw u hadlayna waxay tahay arrimaha cabsida leh oo bulshada caaw ay ku seexanayso waxaan leenahay si nabad ah ku seexda maalinta bari ah doorashadii sideeday u dhici doontaa labada groupna sidaan idin sheegnay oo laga soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahareyba waxa go'aan ka gaari doona guddoonka la dooran doono maalinta berita hadduu Ilaahay raali ka noqdo Ramadaan Kariim salaamu calaykum waraxmatullah shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha